cabashada qaba kala taca kamid ah in ciidana wadada ku wadagaayo wuxuu ku leeyahay macnaha meesha geey hadaa geeys qoro ku qabanaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya shalay waxa uu furay xafiis loogu magac daray garmaqalka dadweynaha xafiiskaasi waxa lagu qaadi doonaa cabashooyinka dadka shacabka xafiiskan waxa hirgelisay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee MISA mas'uuliyiin kala duwan ayaa ka soo qayb galay furitaanka xafiiskaasi haddaba xafiiskan muxuu ka tari doonaa cabashada dadka dadweynaha iyo dhibaatooyinka ay qabaan waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho kuwaasi oo aynu ka wareysanay sida ay u arkaan xafiiskan ay hirgelisay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale haddii ay jiraan cabashooyin markaasi iyagu ay qabaan oo ay geel lahaayeen xafiiskan aad iyo aad baan markaa soo dhaweynayaa baahiyaha loo qabo waxa ka mid ah dadku inay caban jireen banaanbax inay sameyn jireen meesh markay waayaan cabashadooda ama dacwadooda meel ay si toos ah ugu gudbiyaan inay banaanbax iyo laamiga ay dhagaxa iyo lugo inay ku gubaan oo dadka iyo magaaladaba ay khalkhal galiyaan oo amniga wax yeelayaan ayay sameyn jireen marka waxaan u maleynayaa xafiiskaas inuu dabooli doono baahiyihii ay ka mid ahaayeen inay dadku fawdo iyo rabshad sameeyaan oo laamiga ay taageer ku gubaan waxaan kaloo annaga si gaar ah ugu baahannahay mootole ahaan mar waxaa jirta dhacdooyin badan oo soo mara oo askarta dawladda wadooyinka aan wada ahayn askarta dawladda qayb ka mid ah aan ka aragno sida askari macnaha waddo iska socdo kale oo hubaysan xanaaqsan afka u duuban yahay hadduu rabo markaasna uu kugu sameeyo waxyaalo sharciga ka baxsan oo kala xoog inuu kugu raaco in uu maaragtay wadda aad ku socotay intaad asaga ka cabsatay aad ka leexatid marka waxaan u maleynayaa inay barnaamijyada noocaas oo amniga caawinayo inay maaragtay inuu xafiiskaas u noqon doono meel lagala xiriiro aragti fiican waay aragti fiican oo xogaa la soo kordhiyay waay inkastoo waddanka xogaa maasha Allah oo hore u socdo marka waxaan leeyahay inkastoo macnaha baalka hadii la xafiiska la furay inta bulshada qofka loogu adeegi lahaa bulshada mugtahay in bulshada warkooda si fiican loo dhageysto oo macnaha wixii loo tixgeliyo oo macnaha xuquuqdooda lagu tumanin oo waxa waaye muwaadin Soomaaliyeed waa waddankii uu leeyahay meel ka aad malaha maanta waddankiisa hadaa maanta adiga ku ciisho ama ku dhibaatayso ama baayis aad gudi weysid waxa waaye qofkii waxa waaye wax walba ka filo waa marka xafiiska waa soo dhaweynaya si gaar ah dhalinyaradana dawladda aan leeyahay si gaar ah dhalinyarada u fiiriso cabashada qaba kala taca kamid ah in ciidana wadada ku wadagaayo wuxuu ku leeyahay macnaha meesha geey hadaa geeys qoro ku qabanaa waxaan soo dhaweynaynaa dawladda Soomaaliya oo noo furtay barnaamijka garmaqan waxa way hadana bijalida waxaan qabnay dhibaato aad u badan oo meelo badan ka timaada mana aan leenahay xafiis ama meel aan ula noqono dhibaatadeena markasta dhexdeena oo maahana waxa xamaasnaga ma jirtay ayana wax noo jawaab jir ma leeyahay marka hadda waxaan soo dhaweynaynaa 100% barnaamijka naloo keenay dawladda sida gaadiidleyda ugu horeeyna dhibaatooyinka dadka ugu badan qabaan magaalada aad u soo dhaweynaynaa si sharaf leh xafiis oo garnaqo dadweyne oo cabashadooda oo ku dhiibanayso haddii dawladda Soomaaliyeed noo furto waa soo dhaweynaynaa kulley marar fara badan dhibaatooyin inay nagu dhacaan meel aan u caawino waa la hadda meel aan u caawino haddii dawladda noo furtay insha Allah waxaan rajaynaynaa wax alla wixii oo dhibaato oo aan kula kulano shaatiga dawladda in meesha si cadaalad ee wax loogu qaban doono waana inaan meesha codkeena geysano oo haddana wax laga qabanin waa mid laga fiican yahay codkeena markuu meesha tago oo cabashadeena aan gudbin in xafiiska oo shaqeeyo wax qabad oo lahaada naftirkiisa laga rabaa kulley waa soo dhaweynaynaa insha Allah Zikri Ahmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho